something from Zara. So I was waiting for this to come yesterday, but it didn't. So it just literally arrived right now, like today. And I'm super excited to open up. Excuse my voice. I have like super cold going on. So thank you. I ordered this bodysuit from Zara, 1 to 3 months, and then 3 to 6 months. It's really cute and I really love it. And then I also ordered this perfume. I've seen a lot of people rating about it, and if I'm gonna give it a try. This is my first time trying this brand. Exactly like this perfume. I tried a lot of different perfume from Zara, but not this one. So I'm gonna give it a try and see if I like it or not. Assalamu alaikum. Waa salaamantiin. Waa gabadhiini Kowsar ahayd. Maanta waxaa rabaa I want to record a video basically by using this oat. And today is the 21st of February, and today is day 4 of Ramadan. Alhamdulillah, I am fasting. So I'm gonna be using this pot. So yeah. This is how it looks. I'm gonna cook it slowly. Basically, I'm just gonna cook it like low, and then for just 5 minutes. Yeah. So la socod wanaagsan. Waa mahadsantihiin dhammaantiin. Kusoo dhawaada Kowsar Journey. Please haddaa igu cusub tahay subscribe ii saar, like ii saar, iina share garee. Waa mahadsan tahay daawashadaada quruxda badan. Ramadan Mubarak meel kastoo joogtiin. Ani maanta maalintii afraad ay ii tahay. Alhamdulillah. Idinka ramadaankiina soo ahaa. Commenti hoos iigu soo reeb. Waa mahadsan tahay, by the way. It's been like 3 minutes. So right now I'm gonna be adding waxyaalahanito ground cinnamon al dhahaa. Waxa waaye like, how do you say this in Somali? I barely don't know. Qorfe ma la dhahaa. I believe qorfe shiidan. And then ground cardamom waaye. Kanito waxa waaye heel shiidan. So I'm just gonna add it in there a little bit and I'll show you guys. So basically when you add the cardamom and cinnamon, it should look like this. It's gonna change its color. Alhamdulillah. Some people, they cook it with, instead of cooking with water, waxay ku kariyaan milk, but I don't do that. For me, I don't do that. I just cook it with water, and I want it to be like this. I like it when it's crunchy. Excuse me, my baby is screaming out loud. He's so happy today. He just literally turned, today is his birthday. He turned 8 months old. Oh my God, you guys, time flies. I'm not gonna lie to you. Time flies. I can't believe baby is already 8 months old today, the 21st. Oh my God. So why. And by the way, waa mahadsantihiin daawashadiina quruxda badan. And aad iyo aad u mahadsantihiin. Please haddaa igu cusub tihiin subscribe ii saar, like, share, comment. Mahadsanidin dhammaantiin. So hadhow isku soo laabanayna insha Allah. So like I said, halas ujeedin. I'm gonna give it to my baby. I'm just waiting for to cool down. After it cools down, and then I'm cleaning as I go as well too. Just go high, like whenever I'm making something, like أنا wax karinaya waxaan jeclahay inaan wax iska tirtiro sababta tahay inaan hal mar albaabada xiraa rabaa marka jikada ka dhamaado nadiifadeedan inay diyaar ahaato. So la socod wanaagsan.
anaka waxaa waaye hadeertaan waa isku soo noqonayna insha allah. waxaa soo tukanaa salaad casar markaasaa isku soo noqonaynaa. and waxaa isticmaalaya so basically yogurtka ay ugu yaraatay kan gurnela la dhahaa. Let me show you guys how does it look like this. saan waaye waxaa lagu soo biyey boorashka oo hadday ay idin tusaay ma arkin oo wax ka subsanay kaaseytaa laga suubiyaa. xataa waa ka subsan kartaa qof walba walaa is so easy waa subsan kartaa. and then iyo timirta anita isticmaala. I was gonna add it in honey but I was like no, it's gonna be too much sweet. plus timir anoo ku daray it's gonna be too much sweet, so I'm just gonna be using this date. so yeah, la socod wanaagsan. waxaan ku jeclahay this date zaaid ay u waaweyn tahay. I don't know if you guys can see, zaaid ay u waaweyn tahay. so hadda afurkeygaa la gaaray. jeexaas yariskana ku afaa bismillah. haddaa shanqar maqashin iga raali noqda because my kids are here. ilmahayga ila joogo. they're just playing around like normal kids. laakiin bad haddaa shaqan maqashin iga raali noqda, okay? so markaa hagaajiyey saasay u eg tahay quruxda badan ee kusoo baxda. la mahadsantihiin halaha yaroo ay la joogteen. thank you so much. please subscribe, like, share, comment. thank you all. Ramadan Mubarak. khayr wanaagsan aan iiga tegay insha allah. see you next video.